mahadsanid xaflad aad u heer sareysa ayaa lagu qabtay hoolka safari ee ku yaala magaalada Minneapolis xafladaasi oo runtii isugu jirtay mahadnaq iyo waliba taageero guushii ay ka soo hoyisay gabadha Soomaaliyeed ee Ilhaan Cumar doorashadii bilowga ahayd ee ka dhacday state-ka Minnesota gaar ahaan magaalada Minneapolis xaafada ama qaybta 60B-ga la yiraahdo kursigaas oo loogu tartamayay kamid noqoshada ama shakhsiga matali doona aagaasi una fadhiisan doona halka looga arrimiyo state-ka Minnesota shakhsiyaadkii halkaasi ka hadlay waxa kamid ahaa mas'uuliyiin sare oo ka socday state of Minnesota waxaana erayadoodii kamid ahaa. So on November the 8th, Ilha'n Omar is going to be elected to the Minnesota House of Representatives. Yes, she is. You know, I met her a number of years ago when I was the majority leader for the House of Representatives, and she was my guide and teacher in so many ways. And I am really excited to have the opportunity to serve with her. And I'm really proud of the work that she has done and the barriers that she is breaking here in Minnesota, but for so many people and for so many reasons. The leadership, the courage, what she is going to show us is very important. And I'm going to be there next to her as long as she'll have me as an observer and a participant and her partner. We have a woman running for the state legislature who's going to make history on November 8th as well. It's not just about this community, but I want you to think about all over this state, all over this country, that what Ilhan's candidacy and her election will mean to young Muslim women all over this country. What kind of statement it will send for generations to come. You see, we have an opportunity in this state on November 8th to really, truly live up to what has always made this great state and this great country exceptional. It's the idea that if you work hard, you play by the rules, that anyone, regardless of their race, their ethnicity, their gender, can succeed. Somalia damqada oo dalkiina u dirnaxa. Duruufaha adduunyada wuxuu daa'inkan keena waa loo dulqaataa. Anakuna dadkayo da'yartiyo dawladkiyo badaha ku daateen. Duqeydii la dilay oo dumarkii carruurtana daryeel wacan ma helin. Kuwii daacadda ahaa cilmiga loo doono jiray dilaa aan wax garan iyo urdooxi baa helay. Inta diiftu nagu taal midba kii uu doono dubba uu la dhacayo daqarada ka jeexaa. Dunidoo dhan gabiga dusha bay ka eegay isdaneeya ummad yahay. Shay kaloo daruuri haddaan kugu sii daro. ruuxa dariska ku xiga kulku dibir xanuun iyo gaajo u dareemo dibnaha wuxuu mariyay dunyadii waaya dabka hadaana loo shidan doqonnimo xaweeyay haddaba waxa cudbaahiyaha lagu soo dhaweeyay marwo Ilhaan Cumar waxaana erayadeedii kamid ahaa waxa iga balan ah in aniga aan ka shaqeynayo sidii dadka ay noo arki lahaayeen inaan nahay dad isku tashto dad wax garad leh dad aqoon ah dad jaamacadaha ugu badan dadka ka galo Minnesota dadka markay ka fikiraan graduation rate ka Soomaalida Minnesota ka graduate gareysa meel kale lagu ma arko dada arkaysa oo dhahay Soomaalida Minnesota degan wax ma bartaan waa been Soomaali Minnesota degan waa dadka ay ugu imaadaan in anaga tusaale ay naga dhigtaan marka waxaan rabaa inaan ahaano dad wiligood dhiirigelisan dad aanan isyasaynin dadaanan uqdad iska qabin dadaanan isliideynin dadaanan hoos isku fiirineynin dadaanan qofka dariskooda fiirineynin oo dhaheynin wixii qofkaas uu haystaan rabaa marka tahay adiga qofkii Soomaalida matalayay adiga Soomaalida xumaantoodii afkaaga inay ka soo baxda ma aha so aniga waxaan rajaynayaa January markii inaugurationkayga la suubinayo in maamooyin iyo gabdho ay baati ku imaadaan capitalka ay uunsi iyagoo wataan ay imaadaan iyagoo buraanburahay ay imaadaan in wiilasheena macawiistooda iyagoo wataan ay imaadaan in surwaaladoodii sidii iyagu ugu quruxsan iyagoo wataan inay imaadaan annaga oo dhan aan iska dhex aragno inaan nahay dad Soomaali oo walaalo ah oo aan kala sareynin oo waxba iska kala dheereen oo dad isjecel aan nahay marka taasaan aniga ka shaqeynaya idinkan waxa idinka ballan aan idin weydiisanayaa in
taageera idinka helo in November 8 aa kulligiin soo wada baxdiin sidii doorashadeeda uga qayb qaadatiin iyo dadka kale aan taageerayo doorashadooda aan uga qayb qaadano oo aan u helno fursad sharciyada aan rabno in aan hirgelino ay noogu suurta galaan ugu dambeyntii xafladaasi ayaa ku soo gabagabooday farxad iyo iyagoo jaaliyada Soomaaliyeed ay halkaasi uga muujiyeen taageero buuxda sidii ay u matali lahayd una fariisan lahayd aqalka looga arrimiyo State of Minnesota shire warsame galbeedte telefishinka caalamiga ah ee Somali Cable Minneapolis dalka Mareykanka